ganacsiga oo ku soo badanaya magaaladan ayaa keentay isbedel dhanka ammaanka oo dad badani ay ku soo dhiiranayaan in ay deegaankan ay ku soo kordhiyaan adeegyo kala duwan oo ganacsi. xilliyadan dambe oo lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan ayaa isbedel weyn laga dareemayo kubciga dhaqaale ee gudaha magaalada Baydhabo. haddaba qaar ka mid ah ganacsatada ku ganacsata gudaha magaalada Baydhabo ayaa nagu warbixiyay xaaladaha ganacsi ee gudaha magaalada. Maxamed Xuseen waxaana ka mid ahay ganacsatada gobolka Baay. ganacsigeena wuxuu ka kooban yahay hadda sida aad u jeedid waa electronic noocyadiisa kala duwan sida kombiyuutarada, barantarada, qasaaladaha, farantijeerada iyo wixii la mid ah oo electronic uu ka kooban yahay. marka maadaama uu maanta na soo booqday dalka TV waan u mahad celinaynaa booqashada uu fadhigan nagu soo booqday. teeda kale waxaad i weydiisay horumarka magaalada Baydhabo. horumarka magaalada Baydhabo waa wax muuqda weeyaan, waa sadar muuqda su'aal ka dhan. waa bilicda magaalada waad u jeedaa waxaa soo ziyaaday dhismooyin aad u qurux badan oo maalgashi ay ku sameeyeen dadka wadanka iska lahaa. waxa kale oo ku muuqda hadda waa magaalada galbihii ma jiri jirin meel lagu qaxweeyo oo dhalinyarada isugu imaadaan oo aad u qurux badan. hadda waxa laga furay waxaad u jeedaa sida Suubis oo kale laga furay, Horyaal oo kale ka furan iyo waxa kale oo ka furan Safari ka furan ilaa 12 dhowr meelood oo waxaad arkaysaa oo dhalinyarada galbihii ay isugu imaadaan oo ay ku wada sheekaystaan oo ay wararka ay ku kala qaataan ilaa habeenkii 3 saac 4 saac way furan tahay. waxa kale oo ku dheer salaahiyada ku dheer oo banooniga lagu ciyaaro dadka sportiska jecel maalintii way iska shaqeystaan habeenkina banooniga ay isku ciyaaraan. waa wax muuqda waa magaalada Baydhabo horumarkeeda uu fiican yahay. waxa kale oo baaq u direena dadka wadanka ka maqan inay gudaha wadanka ay dib ugu soo laabtaan oo ay abuurtaan shaqo ayaga ay leeyihiin oo ay ku xisaabtami karaan. wadankan wadan la iska tarxiilay maahan adaa iskale cid aad uga haybaysanaysidna malahan. laakiin Mareykanka markaa joogtay Soomaaliya Mareykanka lagu leeyahay mar walba waxa tahay nin madow ah oo aan u dhalan wadanka. dadka wadanka ka maqan oo banaanka jira oo ay haysta sharciyada kale sharciyadiina kale iska sii haysta laakiin waxaan sii jeclaan lahaa inaad imaadaan imaanshihiina uu noqdo mid ku saleysan kar 18 wax abuurid imaansho la imaanayo oo baasaboorkaaga aad na tusinaysid oo 2 bil 3 bil ka bacdi aad noqonaysid oo haddana aad meeshii aad ku sii noqonayso looma baahna. wadanka horumar wuu gaaray gudihiisana shaqo badan aad taala hala shaqeysto hala isu yimaado hala dhis anaga iskale nin walba wadankiisa inuu dhisto wax uga qurux badan ma laha. Soomaalida Kenya maalgashiga ku sameeyay ayada naftirkooda baaq baan u direynaa. kuwa Ethiopia ganacsiga kule baaq baan u direynaa. ganacsiga hal kala qeybiya ma dhahayna soo guura laakiin waa qeybna gudaha dalka ka fura qeybna banaanka ay leeyihiin jiraan. marka wadanka waa u baahan yahay dadka Soomaaliyeed. hadda waxa kaliya naga maqan inta banaanka naga jirta in la tira koobo oo si emergency wadankan gudihiisa lagu keeno maahan anaga sidaan kale waa isku filanna isku tasha dalkaagana wax u qabo. TV dalka oo isin marwalban heegantin mise dadkan dhiirigeliyasan bulshada ka nool magaalada Baydhabo iyo anay haan oo dibado jaran oo aan ka qanaantiyo dalsho mayba muhiim ee dangay majarjarna sanadoodii hore oo saddex dukaamidan oo kale bilicda magaalada saas oo kale waxyaalo badan oo ha ka korna jaran mayba hataa ma sameeyna dad kale oo ku kooy dibado mayba sameeysadana dadka ka nool magaalada Baydhabo gaar ahaan reer koonfur galbeed ku jeedan mayba laha bulshada kale oo ka dhagan wadamada kor mayba walwalba may muhiim antiyada wadanka maalgalata. isbedeladii maamulka ay soo martay magaalada Baydhabo ayaa qayb ka ah in ganacsiga magaalada uu sii kordho. Maxamed Deeq Serjito, dalka TV, magaalada Baydhabo.